كاميرا أنا وكاميرا إيه فرتين أو دوبتي صلحات ما هم يعني عوض صلحوا لي صلحات أصلا مو غني هذا إنه يهلا يا AI فيديو dhibanaha koowaad ee galkan CCTV cadayntii ayaa la dhibaateeyay kaamiradan ma ahan kaliya qalab ku eg duubis ee waa indhaha amniga magaalada oo lagu maareeyay ka hortagga iyo niyadjebinta dambiilaha dabagal degdeg ah iyo jawaab celin waqtigeeda ah cadayn muuqaal ah iyo waxgal fagaraha cadaaladda jabshashadeeda iyo xitaa ku taabashada gacmaana hayr kuwa hay'adaha amniga kaamirooyinkan CCTV ma ahan oo kaliya burbur hantiyadeed iyo xitaa u talab qaadis wax caadi ah balse waa fal si toos ah uga hor imaanaya nabadgelyada bulshada dhacdadan la xiriirta furista iyo firigelinta kaamirada CCTV ayaa laga dhex fuliyay xaafadaha gudaha degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho gacmaha qarsoon ee weeraray indhaha amniga Maxamed Deeq Cabduqaadir Ibraahim iyo Cabduqaadir Nuur Macalin Boqol ku dhicista ilaa iyo 3 jeer ah isla falkan furashada kaamirooyinka ayaa loo qaatay inay ka ahayd xatooyo iyo tuugna casnimo taasoo saldhigga maalmo loogu hayay waxna looga weydiiyey waase ay sii socotay ilaa ay gaarto in laga shaqeeyo rabitaanka qawaariidta ee ah in meesha laga saaro mid ka mid ah caqabadaha ka hortaagan fulinta damacooda waxna ay gaareen heer ay la baxaan dhammaan sistamka keediya ugu yaraan daatada 6 kaamira CCTV baaritaan diiradda saaraya tuunka la xiriira eedeemo ku saabsan wada shaqayn lala yeeshay maleeshiyada qawaariijta ah ayay xafiisku xiraalintu qaaday waxaana laga dhageystay natiijada xog ururin dheer iyo dabagalkii joogtada ahaa ee lagu sameeyay labada eedeysane gudoomiye waxay tira 3 jeer ah ka fureen degmada Xamar Jajab kaamirooyin mid ugu xumeed waxay ahayd markii ugu dambeysay waxay qaateen systemkii dhamaa ee kaamirada marka hore waxay ku ekeed in kaamirada ay furtaan laakiin markaan waxay maray systemka inay qaataan macnaha marka systemka muxuu qabtaa wuxuu keediyaa dhacdooyinka maalinlaha ah ee aaga kaamirada ay ku xiran tahay ka dhaca hadduu dil dhaco hadduu dhaco qarax hadduu dhaco faldambiyeed kale xatooya haddii wax kale lagu sameeyo haddii dagaal safeeno ciyaal xataa ay sameeyaan meeshii laga soconayo kaamirada marka daa furato waxa laga arkaa waxay kaamirada cajiib ku tahay adoo furanay ku duubay adoo furist ay ku duubay marka waxyaabaha cajiibka waxa kamid ah labada eedeysane markay furayeen duubto marka waxaan heynaa oo soo bandhig doonaa oo maxkamadda soo bandhig doonaa iyaga furaayo iyadoo duubayso maxkamadda soo bandhig doonaa number 2 gudoomiye waxaan maxkamadda la wadaagi doonaa dharka ay wateen waqtigaas mid kamid ah eedeysanayaasha oo aan soo bandhigi doono sidoo kale gudoomiye tiro 3 jeer ah in la xiray riboodka ah yaa laga helay tala xigeenka saldhigga Xamar Jajab ama maxdarka xaadir ku ah isagana ka warbixin doono waa soo bandhigi doonaa iyadana gudoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh xaafadihii ay ka furteen oo aan tagnay oo xaafadihii xataa ay la yaabeen maalin walba kaamira la furayo xaafadahaas waa xaafado amni ah oo aan ka dhicin faldambiyeed maxaa yeelay waxaa ku xirnaa kaamiro si marka faldambiyeed loogu geysto iyo qawaariijta u geystaan faldambiyeed waxay ku qasban yihiin si aan loo soo daba kicin in kaamira la furo labada eedeysan marka waxay u ahaayeen shabaabka nimanka ugu shaqeeyahay in kaamirooyinka la furo maxkamadda waxaan ka codsanayaa in dib xusuusin lagu sameeyo qiraalka ay maxkamadda ka qoreen maxkamadda maasantahay labadooda eedeysane annaga ma nihin kuwa gacmaha la galay CCTV ayay si siman u leeyihiin hadalku ninka akhraam maqlis wax maqlay ma laga qorin miya may kaamir lagu keenay ma jirtaa maya ninka kula fadhiyo kaamir lagu keenay maxamed ima keeni maxaa ka shaqaysaa adiga timajaraha ها محل وحير اللي وشيء محاسب مثل وحير كاميرا فروتين على هذه كوس دحة أيه كل أن لك مليان ده يا فرتمر مو أخام به كاميرا دي أكوك هذه الكاميرا اللي مكيني نكاس كاميرا وقيس مجرتها كاميرا ماي كاميرا دماركين ماي كاميرا ماركين محل وشيء مركل وحير والي سوحر لأنه سبدا يسوحرين كاميرا لو هستاي لين كاميرا أنا من نفرون
waxna ma arkin aw kaamirada maba arkinba kaamiro maba arkin baan waxba ma furin kaamirada ma arkin haa aye iyo fariis taliya ku-xigeenka saldhigga xamar jajab oo tire 3 jeer ah xabsiga u dhigay eedeysanayaasha eeda la xidhiidha furista kaamirada ayaa garsoorka hor yimid lana dhegaystay gudoomiye dhalinyartan waxaa ugu horreyn markii ugu horreysay la soo xiraayo waxaa keenay hay-adda nabad sugidda ayagoo ku eedanayo inay yihiin niman farsamo yaqaaniina oo kaamirooyin ay furteen kadib taliya saldhiggaa joogtay waa la xiray hay-addaa keentay waxay dhaheen ha noola haayo kaamirooyinka rabnaa inaan helno kaamirooyinkaa la helay kadib way la wareegeen ayagaa dheheen marka dambe fasaxay naga yihiin kaamirooyinka haddaa helna mar damina u helnay waxaa jirta oo xigtay mar labaad inay gabar oo deegaanka xamar jab ka tirsan ee dhaheen kaamirooyin ay idin xirnaa oo system ay ka qaateen mar labaad markii la daa kadib systemkii ay keeneen gabadhii marka taliyaha saldhigga hortiisa looga fadhiyo waxay dhahday mar haddii systemkaygaa ka helay waxba uma haysto fasaxay yihiin haddana ee mar labaad cabsisay mar saddexaad yarkaas boqol la hayaa waxaa lagu soo eedeeyey asigii laba wiil kaleete inay qaateen taleefon ayagoo eeda gabadhii markay timid caddeyn ku filan oo u weysay labada wiil ee asigaba intii aan la sii daynin waxaa imaadeen dad dhibanayaal oo haddana dhahay kaamirooyin naga maqan oo boqolaa naga qaatay iyo wiil maqana hadda maqanaa iyo yarkan kale la joogo asigan ay ku eedeynayaan inuu kaamirooyinka maqan yihiin kadib waa la reebay boqolka hay-adda nabad sugidda loo yiri waxaa la ninkii ay sii dayseen labadii oo maqan waxaa lagu eedeynaya ninkan kaamirooyin keena haddana midkan yarkan kaleetee keeneen dib ugu soo dareen saasaa boqol lagu reebay kadib maxkamadda la horgeeyey gudoomiye maxkamadda garsoorka gobolka banaadir wuxuu sameeyey staafla saddexdooda la keenay markaa saddexdooda la keenay boqolaa wuxuu beri yeelay ninka hadda maqana ah oo wuxuu yidhi baarihii saldhigga markaas maxkamadda markay joogeen wuxuu yidhi ninkan shaqo naguma lahan anaga saas darteed gudoomiyuhu wuxuu qasbanaaday inuu sii daayo eedeysanaha maqan sidaasaa marka labadaa nin taliyihii saldhigga markii la imaado la soo celshay taliyihii saldhigga waxay tiri sidaa macquul maaha markii saddexaad oo kaamirooyina oo loo haysto oo markastoo la weydiiyo haddana kaamirooyin qayb ka mida la helayo wax macquul ma haddaa gadateen oo suuq la geeyey borsees aaleed tuugo wax gadato waa la arki jira laakiin kaamira iyo system in la qaado oo haddana markii la isku qabsado dad ehelo iyo dad mas-uuliyiin oo dhalinyarada ka mid oo qaraawadooda inay imaadaan ee systemkii ama kaamirooyinka keenaan taasaa culeys noqotay marka taliyihii tuhna ku dhalatay waxay dhahdaa amar ay bixisay in lagu wareejiyo hay-adda dambaaris sidaasay dambaaris ugu wareejinay meeqa jeeraa la soo xiray 3 jeer qofkee 3 jeer la soo xiray boqolkaas iyo yarka kaleete oo la xiran iyo mid maqan labadooduba 3 jeer ma la soo xiray haa mise la sheen maxaa maya midna timajaro waay labada kaleetana saaxiibo waay oo isla socdaan saddexdooda saaxiibo waay marka yarkan boqola iyo yarka maqan iyo timajarahan saddexdoodaba markii la soo wada xiray kaamira lagu soo wada xiray laakiin boqol iyo yarka maqan boqolka kaliisa markii ugu dambeysa waxaa loo soo xiray taleefon asiga dhalinyaro kale inay isla qaateen taleefonkii markii la isku yimid bulsho oo taliyihii saldhigga imaaday oo gabadhi maxaa caddeynaya inay nimankan iyo labada nin kaleeto ay qaateen taleefon maxaa caddeyn u haystaa markii caddeyn ku filan uu keyso weyse sidaasaa lagu fasaxay marka intaan la sii daynin oobig waxaa yimaaday ashtaka ah in boqol inuu qaado kaamirooyin ku maqan yihiin waa kaamira hadda xafiis cilaanta ku tusi doontaa in lagu sabiray oobiga lagula sabiray boorka oo saldhigga kadib waxaa taliyihii saldhigga amartay maadaama labada nin hore oo la sii daayay oo kaamirooyinkii iska mageena bixiyeen oo ninkan asina qaybta kaamirooyinka qayb ka ahaa mar saddexaad ay soo noqdeen labada nin kala hala keeno keenista la keenaa maxkamadda gobolka lagu eedeeyo la geeyo ayagoo tuugo loo eedeynaya inay yihiin markii tuugada maxkamadda gobolka loo gaayay oo la geeyey ayaga waxay beri yeeleen labadaani inay ninkaan shaqo ku lahayn sidaasay maxkamadda gobolka kusii daysay labadaani marka la keenaa taliyihii saldhigga habeen anagoo wada fadhino oo qaybta baarisi taliyahaas joogno oo wada oo kuwada munaqashooneen oo kiisas ka dhaca maantaas ka sheekaysaneen taliyihii loo sheegay ninkan mataqaanaa waa ninkii hadda kahor lasii daayey oo taliyihii nabad sugidda degmada oo yidhi kaamirooyinka oo maqan waa la keenay ha lasii daayo mar labaad gabadhii oo ku imaaneysay oo dhihisay systemkeyga waa haystaa oo waa lee keena hadda ii keenane waxa u maqan maxkamad iyo buuqeedii saacan kadaba ordkeeda mageli kariya fasaxay yihiin gabadhaas waa hadda markii labaad oo saddexaad aad maxkamad gobolka la geeyo ninkii ay sii daayeen waa ma og tahay marka saas may ahaa dhima lahayn waaba haddii 3 mar oo kaamirooyinka la furo oo systemka la furo oo haddana isa dib loo helo suuragal mahane hay-adda la geeyo damaarista lagu wareejiyo sidii marka sidaasaa loogu iyaga markaa weydiisaa maxaa kaamirada ka rabtaan dad dhahdeen maxay dhahay hayga macnaha waxay leeyihiin aniga farsamo marka hore waxay noogu sheegeen inay farsamo yaqaaniin yihiin kaamirada u xiraayeen ciddaan cidda koowaad
saas darteed haddana shaqo kale oo soo baxday ka mashquuleen saas darteed u xirnaa kaamirooyinka u haynay dheheen saasay qeyl ka dhigteen sidaa lagu keen systemka waxa la systemka ka cilmisan waa soo sameeyeen ee gabadha ku dheheen muddo nag mana arrin argagixisay midin sheegin shabaab inay ka tirsan yihiin wax maya anaga nooma sheegin daasho aad weydiinaysaa ayagoo faraha kula jira faldambiyeedka miyay qabteen eedeysanayaasha muuqaalaa baa laga hayaaba asigoo furaya kaamirada qofka laga hayaa boqol waa boqol iyo yarka kaleeto hadda maqan oo ayaga ay sii daayeen maxkamadda ka sii daayeen oo hadda xabsi dhex jira la lahayo oo asna tuugnimo ku asna xiran halkaas waad aragto Soomaa fasax waa arka muuqaalka fasax waa muuqaalka caadi soo qof ha taqaan wajiska amnuma hadaadan waxoogaa indhaa wax ka ahayn horay eedeysanayaashan waxaad sheegtay in loo soo xiray saldhigga xaaladaha loo soo xiray ma ka sheegi kartaa okay sida kuu sheegay in masuudda labada jeer ee nimankan ay soo qabteen ee keeneen markii ugu dambeysay ninkan qolada booliiska ku dhigtay mooyee marka hore keenistooda la keenay masuudda keentay marka hore ayagoo lagu eedanaya kaamirooyin inay waa xirin inay dheheen ay qaateen oo ku maqan yihiin kaamirooyinkii xir lahaayeen markii labaad cid kaamira ka halaysan farsamada yaqaan ahayd oo macna system ka halaysna inay dheheen systemka ku soo sameeyna ee ayagana qaateen oo labadaba kaamirada iyo systemka ay keeneen saas darteed hay'adda marka waxay tahay saldhiga waxa uu yeelo dadka maxaabiista ama dadka ay tuhnada ay qabaan ama dadka ay rabaan inay processka ay la maraan ilaa ay ka wareejinayaan in maadaama xabsi aan oo godka ka soo xabsi kale aan lahayn in saldhiga ay ku sii xirtaan oo lagu sii haayo sidaas labada tookab loogu hayo saldhiga xamar jab muuqaalkaas maadaama hadda teknolojiyadda casriga ay jirto ma laga yaabaa in AI lagu farsameeyey hadda AI hadda ana u malaysid waa ka systemka ku xiri kartaa ogaanay inay AI ta laakiin kaamir muuqaal oo socda AI hadda AI adaan noqonaa hadda muuqaalka noqdo su'aasha ku weydiiyay ama maya ama hawa ma laga yaabaa in lagu farsameeyey sawirkooda la helay ma laga yaabaa muuqaalkaas in AI lagu habeeyey maya ama hawa simple su'aasheeda jawaabta maya ma santahay kaamirada waa la wareegay leeyahay ama waa la qaatay leeyahay kaamiradan hadeertan way furanayeen leeyahay kaliya waa Soomahan maya inta kaamira ee la furtay ee la wareegay maxkamadina la wadaagtay okay gudoomiye 7 kaamira maqan mid kamid ah la helay mid lagu sawiray oo kaamira ay qabatay oo cadeynta uu buuxa lagu helay level 7 kaamira ahaayeen kaamirooyinka la qabta oo cadeynta markii la qabto oo qabat 7 kaamira laga furtay kaamir kamid ah qabatay markay furanayeen ayaga saas darteed waa sababta loo helo halka kaamiro lagu helo waa ayaga okay kaamirooyinkaas kaleetood ayaga laguma hayo wax cadeynaya ma jiraan Soomaan inay ayaga qaateen inay kala qaadato wax cadeynaya loo hayo ma jirto Soomaan maya hadda ma jirto kaamirooyinku waa indha aan seexan isla CCTV ayaa muujisay eedeysanayaasha iyagoo ku hoolan furista qalabka wajiyadoodana si cad uga muuqdaan duubista maxaa yeelnay kiiska waxa lagu eedeeyahay waxa waaye kaamiradii amniga lagu sugayay in ay xadeen eedeysanayaashan maxkamadda hor fadhiya gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh eedeysanayaashan muddo dhowr jeer ah ayaa la soo xiray iyadoo la leeyahay waxay qaateen CCTV-da systemkay qaadanayaan hadda si baaraha ka dhawaajiyay soo taliyay ka dhawaajiyay 7 kaamira maqan iyo 7 systemyadii dhammaan nima kala ku maqan gudoomiye eedeysanayaashan mar walba la xiro waxay keenayeen kaamiradii oo same ah oo ayada ah oo cad haddana kaamiradaasi kuma jiraan wax data ah daatadii dhan waa daadsanayeen xafiiska xilaalinta u diyaarsan ka hortagga dembiyada ayaa il kale ku fiiriyey oo amni ah oo ah in qaabka loo qaadanayo kaamirooyinkan aysan ahayn xatooyo keliya maxaa yeelay xatooyo waa la yaqaanaa suuqay tegey borsasee maray qofkii u tegey halkaasi ku dhammaahe laakiin kaamiradan xaafad maxaa loo dhigaa ujeedka uu kaliya maxaa waa asiga ma iskale maya ujeedka uu kaliya waxaa waaye in meeshaas goobtaas falalkii qawaarigta ee ka fuleed ee ka fuliso ama falalidda ku amniga qof lagu dilo qof lagu dhaawaco qof lagu dhaco waa ognahay inuu gudoomiye marka hadda qof uu xado ama uu dhaco waxa koowaad oo xafiiska iyo baarista ay aadayaan waa CCTV maxaa loo aadayaa waa beema sheegto wixii oo cadaan meesha ka arkaysaa marka sidaas ayaa keentay in la soo xiro waana arin ka timid xafiiska xilaalinta iyadoo la eegayo il amni marka si dhaba loo baarkiiskan waxaana laga qoray eedeysanayaasha
la tagayna goobta laga furtay kaamirada la wareysay dadkii deganaa oo goobtii laga soo furtay kaamirada waxaa soo baxday eedsanaha koowaad iyo labaad inay galeen falkii loo soo xiray ama tuhumkii ahaa inay kooxda khawaarijta la shaqeeyaan maxaa yeelay kaamiradii waxaa laga dhex helayaa guryahooda meel ma aadayso mana la gelin laakiin xogta kuma jirto intee aad xogta waa su'aal isweydiis mudan kaamirada marka in la furto waa arrin khatar ku ah oo liddi ku ah amni waxay la mid tahay adiga oo dilay qoyskaas adiga oo qarxiyay la mid tahay wax ma dhaanto macnaha maxaa yeelay kii qarxi lahaa ama kii dili lahaa dadka meeshaas degan oo deegaanka ama kii ku sameey lahaa fal liddi ku amniga ayay waxay kow ka tahay meeshii laga tixraacay haddaan marka tixraaci baabi'iso waxaa dhaanta male dadkii balaayadaas sababta ay sameyn rabo mudug gudoomiyey goobaha aan tagnay waa goobahan meeshaas kaamira ku xireed waa laga furtay guryahan waa guryaha xamarjab sidoo kale sartaan waa laga furtay mudug gudoomiyey wejigan waa wejiga eedeysane maxmed deeq waa kan kaamirada soo furanaya duubta waxaan rabnaa muuqaalka inaan u shidno maxkamadda oo si dirqiya lagu helay muuqaalkan waxaa ka muuqdo madaxa hoose waa eedeysana boqol oo hadda maxkamadda hor fadhiyo eedeysanaha labaad wiil yar ayaa meesha taagan wuxuu la yaaban yahay nimankaa waaweyn ee kaamirada furanaya maal caddayn 6 saac kaamira furanaya waa madaxaas meesha ka muuqdo waaye eedeysana boqol waxaan arki doonnaa eedeysanaha koowaad maxmed deeq waa isla goobtaas imaan doona waa kan eedeysana maxmed deeq waa ma ahi ma dhihi karin waa kan eedeysana maxmed deeq kaamiradii furayaan shaqadii wataan haddana way duubaysaa iyada adigoo furaya ku duubay waxaa marnabaa soo geli doono eedeysanaha labaad boqol oo hoos laga arki doono kanna waa eedeysanaha maqan waay marka shaqadu waa socotaa eedeysana labaad maxmed deeq fanaa buluugga waaye oo hadda garabkiisa muuqdo weli waxay furfurayaan kaamirada shaqadii aa socoto weli qayb yar ay ka qabanaysaa oo dhinacaan ah waa kaas eedeysana maxmed deeq shaqada marka furista ah hoos waxaa ka wado eedeysanaha labaad boqol oo qaybta hoose laga arki doono waa kaas hadda waxaa soo muuqanayso qaybtan eedeysana boqol tintiisa gadaal ay u sigsan tahay xoogaa salxuu leeyahay salxadaa soo muuqanaysa hadda waa taas wejigiisa saxda ah waa kaas eedeysana boqol oo furaayo baashi waa injineerki eedeysana boqol baashi furaayo ninkaasna waa weydeeyahayo waaye asiga ma furaayo laakiin labadaana furaayaan sida caadiga ah marka waxaa rabnaa mudug gudoomiye meesha waxaa ka muuqatay fanaanad madow baa ka muuqatay fanaanadii waa tanaa marka waa lagu soo qabtaba eedeysana boqol injineerki baasha asoo furaayo fanaanadi oo ku furaayo waa fanaanadaan maxkamadduna way taalla haddaan tusayna maxkamadda fanaanadaan oo watay eedeysana boqol sidoo kale madaxiisaas qaybta oo baalkeena gadaal ay u sigsantahay haddaan fiir ka taa maxkamadda oo wuxuu leeyahay salxuu leeyahay fanaanadu way taallaa kaamirada la furtayna mudug gudoomiye waa lagu soo qabtay oo kaamira hadda maxkamadda tusi doonna waaye mudug gudoomiye fanaanadan waa fanaanad oo watay eedeysanaha labaad boqol kaamiradanne waa kaamirada ay furteen oo duubtay baara ka socday CID booliiska Soomaaliya gaar ahaan la dagaalanka argagixisada ayaa macluumaadka baarista ku biiriyay maxkamadda darajada koowaad ugu dambeyn sababta markaan weydiiyey kaamiradan intay u weydiin waa ayaga lagu soo qabto iyadoo nool way sheegi diideen markaas waxaa ii soo baxday nimankan haddiiba kaamirada oo nool aysan gadaynin ayna khayilayaan markay kaamira furtaanbo in arsaab la shaqeeyaan ee ugu talagaleen qorshe kasta oo meeshaas ka dhici rabo si ay kaamira u qabanin qorshiisa loo fusho kaamira nimanka hore u qaataan macnaha waxaa la isku darsaday sida anaga noo soo baxday in kaamiradan lagu khayilo kaamiraasna mas'uuliyadda askale oo amni ahaan ugu dhijisay meesha macnaha haddii kaamirada ay furteen waxaa la rabay shabaab inay iska tuuraan oo kale maya xaasilin waxay sii sameeyeen oo kale waaba kusii khayilayaan laakiin lacagtii lagu khayili lahay waxaa sameeyeen ayaga ka qaadanayaan kaamirada meel ay dhigayaan mar walba lagu soo qabanaa lagu keenaa marka 3 mar hadda kahor waxaa jirta marka in lagu soo xiray ayaga sanees marka hore koob waxaa loo soo xiray 3 ayagoo mobile kadib waxaa ka daba imaaday gabar system ay dhaheen oo ku sameeynayna ay ka qaateen marka fiirin aan weydiino xogta steegaysiin way sheegi diideen
marka system haddii waxaa arki jirta two camerada furto oo suuqa geynaa laakiin two cameradana qaadanaya guriga dhiganaya systemkina qofka kuu sameynaya dhahaya haddana u tagaayo xogta ka daadinayo meeshaas waxaa u aragnay marka inay shaqeyn wada shabaab jirto oo amniyaadka la shaqeeyaan nimankan gaar ahaan kuwa madax jibiska waxaa taas oo la sii yaab leh ugu dambeyn ma sheegaya macnaha dadka la sii shaqeeyo iyo sababta anaga waxaa sameynay marka lambaradooda waxaa ka dirnay ee afka ay ka sheegeen oo ay leeyihiin fatashaad si ay u ogaan meelaha lacagaha uga imaadaan balse xoogaa nooma soo bixin waa ka sugeynay maxkamadda laakiin waxaa keenay maxkamadda oo soo hor keenay eedeysanayaasha waxaa laga qoray qiraal oo ay ku caddeynayaan maxkamadda horteeda garsoorka hortiisa loogana saxiixay in ay kaamerooyinkaas furanayeen intaas ayaanu kiiskaanu ka ogahay oo ka soo baaray wixii su-aal waa la weydii karaa ayaga boqol wuxuu leeyahay hadda kor waa degnaa jiraan meesha laakiin waxay kala degiin just now ay qorteen dherkinle iyo garisbaalley waxa inta loo imaanaan waxaa waaye in kaamerooyinka degmadan laga qaato si dadka loogu dhibaateeyo oo shabaabkana ay ka qaataan lacag ayaga maba sheegayaan bataatan sababtoo ah in shabaab wax ma sheegaya runta ma sheegayo marka baarista ka soo baxday baaristeena noogu soo baxday khibradiina waa ha markii aan isku fiirinay nimankan kaamirada inay furanayaan oo haddana kaamirada guri dhigayaan lacagna ay ku qayilayaan magaalada iska baashaalayaan meeshaas waxaa noo caddaatay in macnaha daatada xogta leebaraadiyaan iyo in macluumaad macnaha aan laga arkin haddii meeshaas qorshe ka dhacayo oo shabaab ay fulinayaan saasaa noo soo baxday saas darteeda kaamirooyinka uga hortagayaan waxaa ogna oo kale oo waxaan ku haynaa historyada hore kaamirada xataa shabaab kulay ku dhufanayaan macnaha markii wax meesha ka sameynayaan waa jiidinayaan haddii furi waayaan xataa qaarkoodna waa goosanayaan sida kuwan oo kale hore u qaadanayaan meel ay dhigayaan waa ku fahmay si guud in kaamirooyinka nabad sugidda ay hoos tagaan waa isla fahmnay laakiin milkiyadda kaamiradaas iyo maamulkeeda kuwana dawladda markaas gacanta ku hayso kuwana shacabka gacanta ku hayso ma aha kuwa shacab ha sax okay kaamirooyinka totally maqan hadda marka waa kuwa shacab ay gacanta ku hayeen soo maahan oo ay lahaayeen ma kuwa nabad sugidda ay lahaayeen way okay meeqa kaamiradood oo ay nabad sugidda leedahay oo la qaatay ayaa jirta 7 sida ku cad warbixinta saldhigga kaamirooyinka marka hal kamid ayuu shacab leeyahay inta kale dawladda leedahay miya 7 kale waxaa waaye nabad sugidda iyo lahaayeen waxaa kale 7 kale kaamir ma waxaa ogaanayba shacabka marka u tagno soo wareysanay ilaa 4 guri in kaamirka maqan tahay oo aan soo sawirnay oo aan soo gudbinay sawiradooda ashii ha ima jawaabtiidu u badan tahay su'aasha ku weydiin waxay tahay 7 kaamira ee maqan nabad sugidda ayaa iska leh shacab iska leh 7 kaamira oo maqan waxaa iska leh nabad sugidda sida ku qoran warbixinta nabad sugidda iska leh okay su'aasha kale ku weydiinay waxay tahay cid dhibana ah oo aad hadda maanta maxkamadda la wadaagi karto oo hanti iga maqadees ma jirto Soomaaliya waa jiraan waa laga soo qoray maxkamadda bay ku sugan yihiin may lambaradooda iyo xogtooda la hayaa iyo cadeymaha laga soo qoray ma joogaan laakiin maxkamadda waa loo yeeri karaa laakiin waa garan qofka salxaha dadka salxaha qof kale salxiisa ma ka soo saari kartaa salxa bas hadii lagu tusiyo ka baar ahaan dadka salxahooda isku mid yihiin ma ka soo qaban kartaa qof 100 qof oo salxa leh ma jirtaa inay degan yihiin goobta xamar jajaba inay degan yihiin degmada xamar jajaba inay degan yihiin ma degano midna dherkinni uu degan yahay midna karisbaali uu degan yahay ma jirto in degan yahay xamar jajab just now adiga baarisaada waxa ku soo baxday inaysan deganeyn degmada xamar jajab ma degano ayagana waxay cadeyntooda ku sheegeen inay kala degan yihiin karisbaali dherkinni maxkamadda maasan labada eedeysane ee maxkamadda hor taagan ee kala ah maxamed deeq cabdiqaadir ibraahim iyo cabdiqaadir nuur macalin bashiir boqol waxaa ku soo eedeynay in ay la shaqeeyaan kooxda al-shabaab una qaabilsan yihiin qaybta dhagalaha ayaga oo dhowr jeer oo isxigxiga kaamirooyin ka furay degmada xamarajab mudane gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh eedeysanayaashan qiraalkooda sida ka muuqato cabdiqaadir wuxuu degan yahay dharkeeley qiraalkuu ku sheegay caddeyntan lagu qoray halka laakiin ay ka sameynayaan kaamirooyin in ay furfuraan oo shabaabka ay u geeyaan waa xamarajab mudane gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh marka laga hadlayo kaamirooyinka guud ahaan waxay muhiim u yihiin ama door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta amniga iyo xasiloonida bulshada sidoo kale mudane gudoomiye kaamirooyinka waxay ka hortagaan dembiyada sidoo kale waa ka daba tagaan oo waxaa lagu aqoonsadaa eedeysanayaasha geysan rabay falka ama kuwii geystaba in looga daba tago oo la tix raaco mudane gudoomiye garsoore maxkamad sharafta leh kaamirooyinka waxaa loo adeegsadaa caddeyn sharciyadeed oo waa midda hadda aan maxkamadda kusoo bandhignay oo muuqaal maxkamadeed muuqaalka maxkamadda la keenayo caddeynta ah ayaa loo adeegsadaa caddeynta ugu xooggan ee maxkamadda la wadaago waayo
mudug gudoomiye ka soo maxkamad sharaf leh kaamirooyinka waxay jawaab degdeg ah ku saacidaan inay ka bixiyaan wixii dhacay laamaha amniga sida booliiska nabad sugidda iyo guud ahaan laamaha amniga markuu fal dhaco jawaabta ay bixi lahaayeen laamaha amniga waxay ka dhex helayaan kaamirooyinka taas oo kuu muujinayso muhiimadda ay leedahay kaamirada mudug gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh kaamiradu waxay muhiim u tahay ilaalinta goobaha muhiimka ah sida isbitaalada oo maxkamaddan waxaa ka soo muuqday eedeysane ay maxkamad inay xukunto aan jeclahay isagoo moobeelka hadaya isbitaalka lama heli lahayn hadday isbitaalku xirnaa lahayd marka waxay meeshaas ka muujinaysaa faldambiyeed isbitaalka dhex dhacay inay muhiim u ahayd sidoo kale iskuullada waxaa inta ka soo muuqda maxkamadda dhexdeeda arday macallin iskuul garaacday waxaana laga dhex helay ardaydaas wajiradu laga aqoonsaday kaamirada mudug gudoomiye ka soo maxkamad suuqyada waxaan ognahay wixii ka dhacay suuqa gobolka hormaro ee xamarweyne qaraxii ka dhacay eedeysanihii ee geeyey nimanka faldambiyeedka geysanayey ee isqarxinayay ee naftooda haligayay ee qawaarigtaha waxa laga dhex aqoonsaday waa kaamirada sidoo kale waxay muhiim u tahay bangiyada maxkamaddan waxaa kasoo dhex muuqday iyadoo banki ka mid ah bangiyadan lacaga waafi ah ee laga qaadanayo dadkii ka qaadanaya wejiyadooda qaabka looga qaatay iyadoo la dhacayo qaabka ay ahayd taasna waxay kuu muujinaysaa mudug gudoomiye dowrka muhiimka ah ee leedahay kaamirada mudug gudoomiye garsoor maxkamadda sharafta leh kordhinta kalsoonida bulshada kaamirada waxaa maxkamadda daraad aan u sheegaynaa in daraad taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ay soo qabteen tuug ama eedeysane lagu eedeynayo inuu ahaa nin burcad ah oo waxuu ahay dhac ka geysanayay degmada hodan waxay duubtay isagoo hodan ilaa dhowr laami ama dhowr dhacdooyin ah isagoo oo sameehayo dadka dhacayo magaaladu way wada qabsatay facebookyada la soo dhigay waxay ku muujinaysaa mudug gudoomiye isla si degdeg ah in taliska qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir uu ku helay eedeysanahaas yaa sahlay ujeeddada ah ka leeyahay oo intaasoo tusaale aan soo qaadanayo waxaa waaye yaa sahlay kaamirada maxkamaddii hadda ku dhegan tahay waxa hadda aan sheegayno dhan way duube waxa meesha ka dhex dhaco dhan way duube isqabqabsi walba meeshaan ka dhac way duube yaa gardaran yaa saxan ayaa go'aan looga gaari karaa si degdeg ah yaa qaldan ayaa looga jawaabi karaa yaa geystay ayaa looga jawaabi karaa yaanan geysan ayaa looga jawaabi karaa saasay cadaaladda muhiim uga tahay kaamirada mudug gudoomiye marka eedeysanayaashan muhiimaddaas aan soo aragnay ee lid ku ahayn waxaan soo aragnay oo dhan oon tusaalooyin ee lid ku ahayn boqol iyo maxmed deeq liday ku ahayn marka ka soo qabo qaraxii gobolka ka dhacay ee furteen ma la heli lahay maxkamad ma lagu maxkamadee lahay maya caddeynna ma la heli lahay maya eedeysanihi la toogto ma la heli lahay maya yaa ka jawaab waxaasoo dhan yaa sahlay oo laamaha amniga u sahlay oo maxkamadii u sahlay oo xafiiska xiraalinta u sahlay waa kaamirada muhiimaddaas laheyd ayay eedeysanayaashan inta qabtaan ee xogta ka daadsadaan ee xogtii waxay la wadaagaan kooxda khawaarijta al-shabaab mudug gudoomiye maxkamadda waxaan hor keennay qiraalka eedeysanayaasha oo ay dafireen laakiin xafiiska asigoo adeegsanaya baaristiisa cilmiyeed markii uu sheegay nooca far ee meeshan ku yaallo waxay garteen abukaatayaasha in la soo saari karo farahaas oo foransiga uu gaaray heerkaas xafiiskuna uu tababaran yahay in laga jawaabo qofka in farihiisa nooca uu yahay la sheego oo waa midda hadda aan ku soo bandhignay doodeen mudug gudoomiye waxaa meeshan hor keennay taliya-xigeenka saldhigga xamarajab oo ka warbaxshay sidoo kale muuqaalkii ayagoo furfuranaya CCTV-dii ayaa hor keenay maxkamadda sharafka waxaa ka codsanaynaa waxaan ku soo eedeynay qodobka 6aad faqraddiisa 2 inay shabaabka la shaqeeyaan iyo 14aad kaamirooyinka waa fureen dee fureen ujeeddo argixisay ka laheen inay soo sheegaan laamaha amniga soo sheegaan oo laamaha amniga la shaqeeyaan oo la og yahay oo shati u haystaan inay kaamirooyinka xiraan oo shati u haystaan inay kaamirooyinka qaadi karaan oo waddo sharci ay jirto ma jirto waddo sharci u maray magaalada waa iska meeshay rabaan ay marayeen shabaabkuna waa siiyay xogtaas maxkamadda sharafka waxaa ka codsanaynaa in ay ku qaado qodobada aan ku soo eedeyn maxkamadda maasantahay waxaan rabaa inaan difaacayga marka ugu horeyso aan laba qaybood u qaybo qayb sharciga ah iyo qodobada lagu eedeeyey iyo qayb
caddeymaha lasoo bandhigaya dabcan ugu horeyn waxaa maxkamadda hor yaallo waa laba qodob eedda lagu eedeeyey waa laba qodob waxaan kusoo koobayaa labada qodob dabcan qodobka 6aad iyo qodobka 14aad ee xeerka la dagaalanka argixisada labadaas qodob aragti ahaan iyo cilmi ahaan isma qaataan qof ka lagu eedeynayo qodobka 6aad gaar ahaan farqadiisa labaad wuxuu si toos ah u leeyahay qofkaasi waa qof ka tirsan kooxo argagixiso ah halka qodobka 14aad ee xeerka la dagaalanka argixisada uu leeyahay asagana qofka ogaada ma ahan qofka asaga ah qofka ogaada fal argagixisanimo ah oo la samayn raba oo aanan soo sheegin muwakkiliintayda marka ma laba shay aan isku darsanayn ma waxa ay ogaadeen fal argagixiso ah inay ka dhalan karto haddii ay kaamiradaas ay furaan mise waxaa la leeyahay waxaad u furteen kaamiradaas adinka oo ka tirsan ah kooxaha nidaamka nabadgelyadiidka ah waxa isku qasan aanan mataqaanaa isqabanaynin waa labadaas qodob una baahan in la caddeeyo halkaas waa qodobada ma muuqato nuxurka xogta gudaha waxaa ku qoran yani waxa aad u qaabilsan tihiin oo aad ka mid tihiin hadalka waa cad yahay laakiin maadaama waxa annagu aan adeegsanayn oo yahay fal iyo xeer waxaa la rabaa waxaa waaye qodobada inay si toos ah caqli ahaan qoraal ahaan lafdi ahaan macno ahaan si toos inay isku waafaqsan yihiin halkaas waxaan uga baxayaa qodobada maxkamadda horteeda waxaa lasoo bandhigay salxo dabcan sida caadigaa bidaar kale lagama garanayo qof ka garan karaa bidaar kale ma jirto mana jirta ma la caddayn karo eedaysanaha waxaa la yidhi bidaartaa salxahaas waa adiga salxaha kale haddii la fiiriyo dee bini aadamka waa abuuris ilaahay waa salxaha intaasoo qofaa laga yaabaa salxooy inay yeeshaan dadka caadigaaba isku ekaadee difaaceennii su-aalo weydiinteennii hore waxaan ku sheegnay inuu yaha laga yaabaaba AI videoga waxaan ku dalbannay ma muujinayso qofkiioo furanaya wejigiisiioo caadioo kaamiradii furanaya faa'iidada aadow xeerlaaliyaha uga hadlay wuxuu ku dheeraaday faa'iidada ay leedahay kaamirada haddaan faa'iida darrada annagana tilmaanno waxa ay tahay maanta wuxuu u xiran yahay salxo eedaysanaha maxkamadda hor taagan ka mid a eedaysanayaasha mid waa waddada socday baa xaafadooba degan yahay deegaan ahaan nin kalena ehelkiisana meeshay degan yihiin laakiin salxihiisa ayaa loo soo qaaday sida la sheegay ammaano lusiyaa loo soo xiray laakiin gadaal dambe waxaa laga sheegay markii baaris ay ogaadeen ma la keenin meeshaan maxkamadda horteeda kaamirooyinkiioo la wado oo la leeyahay kuwaana la foqsaday aaladii lama keenin xogtii o dhan lama keenin waxyaaba badan maxkamadda marka fasiraadda qodobada iyo habraaca u soo baxa marka difaacaan galna ayada awood u leh laakiin maxkamadda waxaan kusoo gebagabaynaya gunti kusoo gebagabadii qodobada inaysan u cuntamin labada eedaysane ee maxkamadda hor taagan maxkamaddana waxaan ka filaynaa insha allah haduu ilah yihahdo go-aan cadaaladda waafaqsan waxaana dhammaystiri doono qareenka yuuxiga insha allah haduu ilah difaacayna haddii aan u gudagalo gudubka qodobkayga 119 ee gabagabada ah mudane gudoomiye mudane garsoore markii laga hadlaayo eedayn waxaa loo baahan yahay in fal kasta loo caddeeyo si aanan shaki mugti ku jirin si waafaqsan qodobka 110 163 maadaama eedaysanayaashu aysan qiraal ku ahayn fal shabaabnimo ama argagixisanimo ay qiraal ku yihiin inay fal xatooyo ama duruuf nololeed ay u geysatay isla markaana kaamiradaasi ay qayb ka ahaayeen weliba aysan iyaga furan ay leeyihiin waxaa furay niman kaleetood mudane gudoomiye mudane garsoore maadaama aanan caddeyn shabaabnimo bilow ilaa dhammaad aanan la keenin isla markaana ay asalka tahay eedeysanaha falka lagu eedeynayo inuu beri ka yahay sida uu sheegayo qodobka 35aad dastuurka farqadiisa 12aad ee leedahay eedeysanuhu waa bilaa dembi ama waa dembilaabe ilaa looga cadeynayo si aanan shaki iyo mugdi ku jirin maadaama la caddeyn waayo shabaabnimadaasi si shaki iyo mugdi ku jirinna loo caddeyn waaye waxay caddeynaysaa markaasi ama loo laabanaya asalka in eedeysanaha uu beri yahay taas ayaana mudane gudoomiye mudane garsoore midda la rabo in cadaaladda lagu gaaro haddaana qofka la cadeynin inta uu sheegtana looga badiyo waxaa imaanaysaa in xadgudub uu markaas qofkaas la kulmo laakiin inta uu sheegta haddaan cadaan lahaynin in intaas lagu ciqaabo ayaa ah
hadday maanta inkiri lahaayeen dhihi lahaayeen ma gelin totally ba falxatooya ama ma jirto kaamiro lagu duubtay xogtaas ama ay indhaha u qarsanaan lahaayeen xafiiska cadaan meel ka kana ma heli lahayn ilan indha xirin ma ka yaqaan eedeysanayaashan in lagu eedeeyay way adkaan lahayd waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa mudane gudoomiye mudane garsoore in gabi ahaanba lagu waayo qodobada xafiiska uu ku soo eedeeyay ee aanan waafaqsaneyn eediisa ee ah qodobka 12aad qodobka 6aad iyo qodobka 12aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada isla markaana muwaadiniinta Soomaaliyeed falka xatooyada kaliya ay sameeyeen maxkamaddu ay qiimeyso isla markaana isfaalaha dambiga fudud u fiirisa maadaama duruuf nololeed ay jirto xoriyadoodan dib ugu celiso maxkamaduna aad ay mahadsantahay cabdiqaadir haye maxaa meesha ka socda faan waxyaabo badan maxaa ka mid ah yani fiidiyoga hadda la daawanaya ani kuma jiro horta awalan salxadaadi maaha miya ani maan kulaaba deerta mudan taadi maaha miya may maxkamad maxaa ka codsay kuley maadaama kiiska la eeday aan gelin xornimo rabaan maxkamad maxaa ka codsanay xuriyadeeyaa ka codsanaa xuriyadaad artaa waa ka codsanaa